Bismillaahi. Soomaalay darajooyin iyo dowlad baan lahayn. Bada dabaal wacaya webi dada baan lahayn. Wardara dhaadheeron ku dalxiisna baan lahayn. Digada iyo dakharkooda dafacaan lahayn. Dugsiya diinteena lagu dalacdaan lahayn. Wardara dhaadheeron ku dalxiisna baan lahayn. Inaan dakum noqona ma noo damba. kusoo dhawaada mar kaleeto waa barnaamijkeenii aad inta badan aad nooga barateen waa barnaamijyo qaasa aan ugu talagalnay dadka gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka isla markaasina aan ku eegayna hal abuurka dadka qof walba oo hibo gaar leh oo hal abuur leh waa barnaamij uu ku casuumaya isla markaasina aad in badan aad naga wada sugayseen maanta waxaa marti noogu mid ah gabar kamid ah gabdhaha abwaaniinta ee dalka Mareykanka isla markaasina suugayahanka gobolka Minnesota ah waa Qamar Luul. Qamar ugu horeyn kusoo dhawo studios. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan dhuwahay walaalkay Cajiib iyo walaalkay Axmed Laari. Aniga magacaygu waa Qamar Luul. Anoo yaraan qurbaha imaaday especially Axmed Laari 2018kii waraysi qurux badan ayaan siiyay Buraanbur. Talantigana waxaan ka keenay hooyaday Saar Qeer Jecel, abtigay Xuseen Xulbaale iyo eedaday Baxsan Xaaji Cali Siigaale fanaanadii weynad Allah u naxariiste 15 bil sharaf u siyaad bara siiyay marka ayaa hidan ka sitaa. Waxaad noo sheegtay inaad suugaanta aad ka dhaxashay dad ehelkaaga oo familigaaga ay tahay suugaan soo jireen ah marka intee leeg adiga oo markaas eedadaada ay tahay ama qiyaas ahaan aad isdhihi karto ayaad isku aragtaa hal abuurka samaynta ama curinta suugaanta. Hooyaday aroosyada Soomaaliya gabdhaha markii la galbinaayo ana hooyan saaxiib la ahaa eedaday Baxsan qaar laha siiyo waa ku xirnaa codkayga alaabta markaan dhaqaayo gabar ilmaha la ciyaarayo my childhood ani kalos waxaan ku ahaa hooyo ilaahay ha ii caafiyo ayada iyo walaashay Qaluul intaan ka salaamaya iyo walaalkay Kaahin iyo walaalkay Cabsimid iyo walaalkay Abshir. Buraanburka iigu horeeyay aan tijaabiyay wuxuu ahaa caruurta dalalkan aan keenay oo daryeel ku helay codsigana wuxuu ka yimaad walaalkay Axmed Laari. Hooyaday wuxuu yiri sidaad ku soo saartay single mother adigoo ah gabar takhtarada iyo wiil injineera. Buraanbur baan ka samaysan kala qof aanan garanayn malahan xilliga COVID-19ka gawaarida ayaa laga dhageysan jiray. Ugu horeyn haddii aan ku weydiiyo marka aad yareed oo kaleeto ayaad sheegtay inaad suugaanta aad guriga ku dhex curin jirto mar waliba aad halkaas aad ku hadaaqi jirtay marka haddii loo eego markii aad bulshada soo dhex gashay ay ugu horeysay aad microphone qabsatay goormay ahayd aad dad inta soo hor istaagtay aad hortooda suugaan ka tiriso? Shir weyn oo Arsaba ka dhacay markaan soo qaxnay aan Arsaba imaanay shir aad u weyn oo madax Soomaaliya adeerkay Boqor Buur Madow shirka bahweynta beesha direed ayuu ahaa waa lagu casuumay ana codkaaga tijaabi gabar walaashay abwaanada ay dhiibtay hooyaday amiraha lahayd Buraanbur dadka dhan taabanayo Soomaaliya daraj macna wadankeena iyo calankeena iyo waxaan ku xusay midnimo noo keena dalkiiba u nahay diyaar. Waa tahay kaasi waxa ahaa shirkii kugu horeeyay aad dad inta soo hor istaagtay aad ka buraanburtay. Buraanburkaasi ma xasuusataa iyo suugaantiisii mirihiisa sidoo ah? Soomaalay darajooyin iyo dowlad baan lahayn. Bada dabaal wacaya webi dada baan lahayn.
wardaara dhaadheeron ku dalxiisna baan lahayn digada iyo daqarkooda hay daafacaan lahayn dugsiya diinteena lagu dalacdaan lahayn wardaara dhaadheeron ku dalxiisna baan lahayn inaan dakum noqona ma noo damba madaxda soomaaliyo howdhegiina fuura caruurta dalalkanan keeno daryeel ku helay markaan ku dadaalay xoogoodu yahay diyaar bannaankay u baaxeeno warkeenay badiidayaan bannaanka loo taagayo waalidkeed dafiiray kuwa la dilay iyo kuwa jeelka ogow la deegay daroogada kuwa cabiyo diinta waxaysa qaabin daroogada kuwa gadiyo diinta waxaysa qaabin war maan u dareeraciideeni dahabahayd wargeedka dheer iyo midkii gaban gugusha dhiiga caruurta geesaha ka joogo gacmaha u dhiiga waxii kala gaaray soomaali laga gudbaa khayraadka ku dahasan dalkeenaba naga badane allow xagga iyo xaggana xaasidkeena jaabo. waxaad ka tirisay nolol dhab ah dhibaatooyinka dhacay qurbaha iyo mid ka jirta dalkii oo miro aada u culus aad kula dardaarmayso madaxda dalkaaga kuwa hadda ah kuwa mustaqbalka noqon doona iyo weliba dadka dhibaatada qaaska haysato fariintooda aad ku gaarsiinaysid dadka Soomaaliyeed ee dhabta ay jirta. haddii aan ku weydiiyo miraha markii la curinayo oo kale ama qofka suugaanta ah oo wax curinayo oo kale sidee buu u curiyaa ma dhibaato qabsato darteed uu ka curiyaa ma dhibaato qof ku dhacdo ka curiyaa ma farxad qof qabsato ka curiyaa muxuu ka curiyaa qofka abwaanka ah markuu miraha samaynayo cajiib aad baa u mahadsan tahay buraanburka hooyaday markii ay ii dhiibtay wuxuu ahaa wiil yar oo walaalkay dhalay ayaa lagu dilay Mareykan markii la dilay ciyaal badan oo Soomaali Minnesota overdose u dhinteen waxaa dhacday anna markaa ilmo yar oo teenager ii joogeen wadankeena waan ka soo qaxnay burbur badan baa nagu dhacay community-ga misunderstand ciyaalka Afrika dariska ku caawinayay dalkaagii macallimiintii dugsigii diintii wixii dhan waan soo burburinay kugu dhimay oo kaa dhimay cunugii dhintay wixii loo dilay iyo wuxuu u dhintay midna mataqaanid Axmed Laari Khayr Allahasi iyo Cabdiraxmaan Furla ayaa maamada arkeen hooyo waxay ka dhigan jirtay school bay ka dhigan jirtay Sankalaawr على خضر intaan ka salaamaya macalinkeeda waxaa la yiri maamadan single mother waxay soo saartay gabar takhtarada wiil yar oo engineer waa la wareystay Soomaaliyana talentii ay kala heed marka buraanburka iyada ii dhiibtay ana saasan ugu luuqeeyay iyaas waa qasan ugu dhacday qofka duusan gurigiisa iyo wixii ku dhacay wuxuu ka caawin karaa marka buraanburka ciyaaladii dhintay iyo wiilkana eedada u ahaa ayaan halqabsi uga dhigay markaan koriyay oon dadaalay oo igu filaan lahaa albaabku ka baxay wat markaa u yeerto hebelow markaa tira wat wadanka beeyada cunugaagii basementiga wuxuu rabo kusoo sameynaa cajiibo waa arrin aad iyo aad u xanuun badan maamooyinkii qaar cilmi badan oo ilmihii ay ku ogaan karaan malaha soo wuxuu soo cabay iyo wuxuu soo qasama ogaan kartid dalkii iyo beeyadii ka tan badan dariskiya jiidanayo saaxiibkiisa taxi mas soo diraayo uu dhaqaajina furihi gaariga ka tagaa mobilka location ka xirana hooyadii walwal inuu sokor ku dhaco dhiikar ku dhaco haarta ku dhaco stroke ku dhaco soo yaa markii dambe waxaa idhi wargeedka dheer iyo midkii gaaban gogosha dhigay midnimo noo keena dalkii baa u nahay diyaar aad u murugo badan isla markaasina horta uu kula dareemayaa intaad joogtay qurbaha ee dadkaagii iyo dalkaagii aad ka soo tagtay
waxyaalihii aad kala kulantay cashar aad dhihi karto maanta dadka ay kaa baran karaan marka laga tago noloshaada abwaannimada ah, marka laga tago oo aad uga taariikhayn karto dadka aad uga degi karto ama aad gobjoog u ahayd ama adiga laftirkaaga aad dareentay, maxaa ka mid ah oo maanta bulshada la wadaagi karta? cajiib. Maraykan markaa imaaday bictureka ii sawirnaa iyo bictureka aan la kulmay shaqo iskuma lahayn. Abtigay qaar lahaa siiyo isagaa i keenay. Hooyaday Afrikaan kaga soo tegay magaalo Sandeegan kusoo degay, waan ka tagay Oregon ayaan aaday. Iskuul baan subaxii aadaa, galabtiina hotel housekeeping ayaan goglaa hooyaday inaan biilkeeda meel saaro. Waxaa dhacday bas ayaa la yiri baskaa raac iskuulka ku tag. Baskaa raacay. Cajiib. Baska southka markuu ka baxo, markuu soo noqdo you have to be inaad jidka inaad cross gareyso dhinaca kalena ka raacdo. Bartii uu subaxii dhigaan ka raacay. Ana marka gabarida maskaxda laga koriyo hooyo strong ay dhashaan ahaa addresskayga jeebkaan sii gashtay lacala haddii ay wax dhacaan ama ay dhumaan luuqadii iskuma fiicnin. Waxaan lahaa in dadka excuse me I need help. Intaas horaan ka bartay. Kenyana bareefadaan kusoo dhigtay. baska markaan arkay inuu xaafadda u soconin gadaalaan fadhiya. Oregon, Portland iyo magaaladaas kama helin, laakiin Maraykanka ka mid tahay dadka ku nool waa salaamaya. Qabow baa dhacayo, qarqar iyo gaajo kugu dheer. Markuu ninkaa arkay alaboorka inuu tagay maqribtiina magaalada inay mugdi tahay uu yiri last stop. Aan u tagay addresska u geeyay, waan ooyay. Markaasuu yiri what happened? Markaasaan ku dhahay I need help. Addresska markuu arkuu yiri southwest and this time baan ku dhahay I need help, magaaladan ku cusbahay. Boolis oo igu yeeray. Cajiib. Waxaa dhacday guriga markaan imaaday telefoon ma jiro, leen xilligaan nagaan imaan leen jiray. Gurigii shaaha la karsaday, deriskoo dhan soo baxay, xalfad baa la dhigtay. Waxaa la yiri ambaro magaaladii fahantay, bilbisay joogtaa already, shukaasii aada. Anigana qarqaryo gaajada. Gabar markaa intaan ka salaamaya Kafaaya Qadiir hore jabka ugu dhacay ayaa garatay suuliga igu soo gashan oo ooyna maxaa kugu dhacay? Waxaan dhahay waxaan carada madaxa ka cishte. Waxay tiri ma dhuntay? Waxaan dhahay how do you know? Waxay tiri anaa hadda koor sameeyay. Baan iri cashir bay kuu tahay ooyna ay tiri. Kafaayo aad baan kuu salaamaya habar yar. Marka Maraykan hooyo ka tagtay baa ilmo ku korin karto. Aabayaasheenana waan salaamayaa, laakiin gabdhaheena hadday dalkii noqoto cajiib iyo hadday qurbaha noqoto lafdhabar. Absolutely. Brownbur baan ka sameeyay. Brownburkaad u samaysay sugaantaas. Bal ayadana qaco nooga sii sheekadeena waa soo laabanayna. igu qaat reersan kala farxadeeda lama soo koobi karo. Dhaxtaal wax yar macal ubax iyo cibaado iyo daxaawo reer Sheekh Xasan dhammaan oo salaamantii sidaad igu soo duceyseen. Alxamdulillah reerkeenana dib baan u midownay. Guuleysta Aamina Jahweli iyo kulli macal ubax especially iyo Musuleeqo qaalin geel dhammaan waa salaamantiin. Buraanburka hooyada qurbaha haddaan qayroodan igu qaata. Bismillaahi. Ilaahay cirka taagayo ciida gogolka dhigay, badaa cartamaya webiyada kala cayimay. Rabbigan cabsidiisa calaan calu taagayo, casaa wajalo waxaan ka codsanahayaa. Ciddii layga beeray Soomaali caamahayd, qurbay ku raageen Rabbiyow cadaab hageen. Gabdhaha Soomaaliyeed way ammaanayiin, dhammaan hooyooyinkeena salaamaya. Gabdhaha Soomaaliyeed waan ammaanayaa, qurbay ku raageen Rabbiyow cadaab hageen.
allo hooyadeen macaan hoy jannada ka sii hoyoy waadno dadaahasheen allow ku daa masaajidhistoy masaakiin aruurisoy maslaxa muslimiina midaha mujisaatihiin agoonta aruurinteedaad ku caantihiin madaxda soomaaliyeed waan dhaliilayaa midnima noo keena dalkii baanu nahay diyaar gabdhaha soomaaliyey dhegeena fuura haddii gobanima la sheegto la gaari karo garaadana laha isku siinaya suuran garbaha gefina maaye waxaa gabdhowna dhalay gabdha geesiyaaloon aadmi lala simayn culuma weeyaane diintay dareeriyaan ciyaalka ruurintooday ku caayiin rabbow xagga iyo xaggabo xaasidkeen hajaabo waa bromber aada u dareen badan waxaana la yidhaahdaa magaciisa sida aad sheegtaba hooyada qurbaha waate markii loo eego bromberkaasi hal abuurkiisu markuu kugu dhalanayay sidee buu ku yimid ma qisa adig kugu dhacdaba ma waxaad la kulantaba seeba ku timid hooyo single mother ayaa isoo korisay africa markaan joogan yaraa survivor bay ahayd salaadii bay baxdaa qoryooli aan ku dhashay cajiib waxay aadi jirtay konturwaari anoo yarba itoo bartay hadda gabadha takhtarada ee faarga degan mataan bay ahayd labada mataan anaa guriga ku hayay mas-uuliyadda hooyada soomaaliyeed waa jaamacad hooyo ilaahayo hooyadan hoy jannada kasii halkaasay ka imaaday marka qiso badan oo badan waan hayaa insha allahu hadda ka dambe waan idinla shaqeynayaa weli gabar yaroo taalanti leh oo waaye araga buraanburkaygana lacag ma aha waa waqaf buraanburka waa hub lagu dagaalamo sayid cabdulla xasan buugaag badan buu ka qoray marka gabdhaheena waxaan leeyahay nambarkayga axmalaari kasoo qaata haddaad xalfad qabtaan haddaad dhalasho qabtaan hadday ilmo idiin qalin jibinayaan buraanburka waa dhiiragelin waa duco waa maasha allahu motivation markii ilmahaaga meesha heesaha iyo muusikada iyo maadaama culimmada ay wax badan ka hadleen buraanburka iyo gabayada xarabnaa wiilasheena cajiibi axmalaari habeen kasta waan fiirsadaa anoo mamar shaqa ka imaadoo daalan baa walaalkay cajiib waxaa arkay qiso wuxuu keenaa xasaasiya marka weligay waa u duceyn jiray maantana waxaan leeyahay studiogiisaan fadhiyaa dee ilaha mahad iskale laakiin waxaan rabaa mid inaan ku weydiiyo markii loo eego dhinaca abwaanimada waad noo sheegtay oo abwaannimadaada waa midaas banaanka taala waa midaada ugu deeqayso maanta aada leedahay maahii qof hanti ka raadinaya waxaan ahay qof fariimaha dadkayga inuu adduunka gaarsiiya rabaan ahay marka loo eego qamar maxaa kale oo ka duwan ay qabataa markii laga tago sugaanta waa qof nocee qamar for example gabar yaroo qurbaha imaaday xilliga annagaan imaanay hooyo aabana lama soconin laakiin waalidkeena oo qaaliya especially abtiga waa hooyo naasla ayaana keenay noloshii adkeed aan kusoo koray horta alxamdulilaahi waxay bartay inaan ka dabaasho ka guuro maraykan africa u guuro business airbnb aan ka sameeyo garoowe iyo muqdisho iyo hargeyso iyo kismaayo farmaajo xafiiskiisa waa kasoo shaqeeyey allah u naxariisto maama nakruumo ayaa kariidhka laheed iyo hooyo hiba nuur intaan ka salaamayaa cali masaarkii madaxweyne siciid cabdulaahi dani waan kasoo buraanburi anoo ayay doombira ah
aad baan u salaamayaa marwada madaxweynaha iyo madaxweynaha reer Garowe sida ii soo dhaweeyeen. Jubbaland sidoo kale waan tegay. Jigjigo sidoo kale wasiirka maaliyadda Axmed Shide casuumaad ka helay. Familkaasna waan kasoo jeedaa cidaan garanayeen. Reer Jigjigana dhowr jeer ayaan ka buraanburay, walaashay xiis iyo gabdho badan ayaa casuumaad ka helay. Hargeysana waan degay, meelo badan aan kasoo xabadritay. Alxamdulillaah 6 biloodna Mareykanaan joogaa, 6na Afriko. Marka fikradaasna hooyaday qaar allaha siiyo, markay aragto qurbaha iyo ilmaha iyo daalkiisa aan ciyaalka lagu qalay waan ku guuleystay. Cajiibo, marka alxamdulillaah. markii loo fiiriyo dhinac ganacsataa ka tahay, dhinac dalkiya waxaad ka dhisaysaa oo siyaasiya tahay, dhinac markii loo fiiriyo qof sugan, marka ma la isdhihi karaa qamar waa dhinacyo badan oo isku jira. waa tahay marka qamaray marka loo eego marka guud ahaan hadda gobolka Minnesota degan tahay, gobolka Minnesota marka aad degan tahay oo kale waxyaalaha aad la kulanto badan aad ku aragto oo kusoo jiita ama kaa yaabiya ama aad isdhihi lahayd ama maanta aad ka wacyigelin lahayd gabdhaha iyo wiilashaba ama ragga iyo dumarkaba aad ku wacyigelin lahayd oo fariin aad halkan u marin lahayd, waxyaalaha ama wanaag hadday tahay ama waxyaala khatar hadday tahay ama dhibaato hadday tahay, waxyaalaha aad kala kulantid ama ku aragtid bulsho ahaan fariinta, maadaama qofka suugaanyahanka la yiraahdo waa qof dadka waxayna arkin arkaa, dadka intayna arkin ka hor arka lagu sababay. marka maxay tahay dhinacaas markaad ka eegso? cajiib, maasha allah, tabaaraka allah. Su-aal qurux badan aad i weydiisay. Qurbaha iyo dalkeeni badanaa gacmo geeljir hoos baa loo dhaqaa. waxaa gabdhaha ku dhaco waa la xallin jiray. gabar waxaa heli jirtay saaxiib sirtaada kuwa ilaaliso. waayahay qamaray, bal haddii aan ku weydiiyo su-aashaynii ahayd guud ahaan dalka Mareykanka gobollo duwan ayaad kasoo degtay, hadda waxaad joogtaa gobolka Minnesota oo muddo badan aad degnayd. qofka suugaanyahanka waxaa la yiraahdaa intayna dadka wax arkin ayuu arkaa, oo suugaanyahanka waxaa la yiraahdaa dadka uu ka indhadheer yahay ama uu ka aragti fog yahay. marka bal inta aad goobjooga u ahayd waxyaalihii aad ku aragtay, haddii taa waxaad dadka ka wacyigelin lahayd, aad ka waanin lahayd, ama haddii taa wax adiga ku farxad geliya oo nala wadaagi lahayd, ama wax adiga kula xumaaday oo aad isdhihi lahayd dadkaaga maanta dhalinyarada ah, wiilasha, gabdhaha, ragga iyo dumarka, odayaasha, dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan aad dhihi lahayd maanta waxaan u baahnaan lahaa bulshadeeda Soomaaliyeed inay tan iyo jaaliyadeedaba inay tan iska bedelaan, maxay ahaan lahayd aad nala wadaagi lahayd? maasha allah, tabaaraka allah. walaalkay cajiib, aad baa u mahadsan tahay. horta Axmed Laari iyo Saaso Maxamed Maxamuud laf dhabar Sankalaawd markaa imaan 2005 ani magaaladan aan ku guursaday. magaaladan wiilkii aan ku dhalay jaamacadoo dhigtaa. waxaa dhacday Sheekh anoo degan Sheekh ballamo iyo warqado ayaanan ka jawaabin, waa liga kansalay. marka Maxamed Maxamuud aan u tagay, waxaan dhahay adeero sidana igu dhacday. marka macrifatul qadiim khayr min nasab, dadka markay laftaada iyo ludaada yaqaanaan way fiican tahay. Sheekh ballanka qabtay, wuxuu yiri arrintan waa serious case in la is arko waa ana jaanis dambab iyo mahalin 3 ballan baad goysaa la yiri. wuxuu yiri anaga gabdhaheena mas'uuliyadan la saaray maba qaadi karaan. Afrika ilmaha la korin jiray, waa la caawin jiray. marka society hadda aan joogno waa society aad u adag. marka gabadha cunug baa ka xanuunsanaa, mayo kliniga ku maqneed kaligeed. adiga excuse fiican buu ii diyaariyay Maxamed Maxamuud, aad baan u salaamayaa. adeer ilaah waxaan la guuleyso. Sheekh ii soo badbaadiyay. communitygaaga inaad la shaqeyso aad bay u fiican tahay. waxaan xasuustaa oon qalbiga ka go-een, allah u naxariistay, adeer Sabdo wiilkiisa moolka lagu tooganayay uu ka dhiidhiyey inuu xaqiisa banaanka soo dhigo, garab buu waayay. markaan xasuusto waan qiiroodaa. aabihiis kama dambeenin daahir in la dhahan jeclahay, wiilka lagu dilay moolka Sankalaawd. Maxamed Maxamuud waa nin ildheer garad
laakiin bulshadana kama faa'iidaysto dhaligaradka. Magaaladan markaan soo degnay Maxamed Maxamuud iyo Maxamed Yuusuf Electrolux ayaa interviewga ayagaa loo diri jiray xilli jiray orda labadan nin u taga. Gabdho badan oo luuqadii ku adag tahay, foonkii ku adag tahay, rasmi intuu kuu sameeyo ayaan anagoo 100 qofa xataa gurigeenna laga kireey la diidi jiray. Waxna way noo dhameeyeen. qabiilkii burburiya dalkeena ayaa Maxamed Maxamuud iyo Maxamed Yuusufbo lagu daray daadka la yiri kalaantiya badan baa idinka complain gareeyay oo xal idinku yiri labadiina laba qabiil baad kala tihiin ilaa hadda ma ilaabo. Anigu ay cuntami weysay maadaama dhal qaran aan ka soo jeeday aabba qaran hooyo qaran aabi Allah naxariistay SYL oo ka soo xabadritay 77kii dadkii dalka xoreeyo ku jiray adeerkay Cabdi Xuseen Iidle axmaarada nin aad u qurux badan oo ah family beautiful aan ka soo jeeday waxay dhaheen waxaan dilay cadaan wajiga ka qaleen wasiirka maaliyadda Itoobiya awowgiis waa Ilaah naxariisto. Marka aniga yaraanteedii waxay iga dhex guuxay qofka wadaniga ah ajiye markaan ku soo wacay aan ku dhahay Axmed Laari walaashiisaan ahay waxaan ka dhex dareemay wadaninimo wayna ka muuqataa. Marka Maxamed Maxamuud madaxweyne u istaahilaa cunugna overdose noogama dhinteen haddaan Maxamed Maxamuud garab istaagi lahayn iyo Axmed Laari Soomaali wixiina burburiyay ee halkaa naga keenay ayaa inta la imaanay. Faatax Cumar waa ka xumahay wiil yar oo active oo Mareykan ku dhashay wixii wasaqdii aan ka soo dhaqaaqnay ayaa annaga maayar wiil yar oo Mareykan ku dhashay oo role model noo ah oo wiilasheedii iyo gabdhaheeda ay ku danayeen inaan ka hiilino. Wallaahi waxaan leeyahay Soomaaliya shame on you. Waxaan leenahay Cabdi Dyson abtigay iyo in adeertay ayaan kaabo hala garab istaago ninkaaga ayaa ninku ah. Aniga xafiiska cajiib saacadaas intaan soo shaqaystay Huber baan wadaa ilmahayga soo kala seexsaday baan saacadan waxaan fadhiyaa studio Soomaali. Axmed Laari iyo cajiib waxaan leeyahay hero baa tihiin garabkiinaan taaganahay inaan idinla shaqeeyo idinka idin sameeyo buraanbur taalanti leh oo taariikh ilmaheena iyo dunida oo dhan laga ogaado. Adeer saaso creditkiisa intaa kuma ekeen family problem hadduu dhaco laysin wuxuu soo qaatay maxkamadda inuu dismiss ka qaadan karo oo dhihi karo kiiskaas anaa soo xalinayo. Tiina hadda waxaan maqlay in la laalay oo lagu yiri ma u baahnin judge-ka wuxuu noo keeno ayaan ku qanacsanahay. Manipulation af Soomaali waxa lagu dhahaa isdabamaryaan khiyaano. Marka adeer geesi garab waay ayaa tahay Maxamed Maxamuud amaan uma waayin sirkiisnimaan aqaan war amaan uma waayin sirkiisnimaan aqaan Maxamed Maxamuud adaa beerka nooga yaal wargeesi weeyaane dunidoo dhan laga yaqaan masaakiin aruurinteedu ku caanahaa maslaxa muslimiina ninka muujiyo ahaa cilmiga sara lagu tagiyo saynis buu yaqaan siyaasadda dunidaba loogu sahan tagaa adeerow guulaysa weliga gadaal ha maarin garaada laha isku dhaafaya suura garbaha adeer waan ku duceeye alloo wajiib ducana tiisoo malaha daaha kugu xiran alloo waa ku qaadin qaadka maanta jiro annaga waad noo dadaahasho la wada ogyahay
saxiixa ku duugan sanka halaadhna lama dafiiro. wiilkii yaraad u hiilisay xaqiisii la duudsiiyey, adeerkii sabdow wuu dhintay, soomaali way kaa faa'iidaysan weysay, laakiin geesi garab waayaa tahay, adeer berka kaa ogsoomay. aad baan kuu salaamaya, waa gabadhaadii Qamarluul Keemiye Xuseen Xilbaale. cajiib, waan qayrooda ku soco. waa tahay abwaanada waa abwaanada aada u daayar sidaad aragtaan, isla markaasina karti badan, hooyo ah, qurbaha, ayadoona dalayna aqoonin, afayna aqoonin, iyadoo yar la keenay, laakiin sida ay sheegtay hal adeegeeda iyo curinteeda iyo waqtigeeda iyo waayaheedaba kusoo dhex joogtay, isla markaasina dadka Soomaaliyeed maanta meel ooga taala. waana gabadhaas aad arkaysaan, maasha allah. haddii aan ku weydiiyo qamar, qurbaha noloshaada markaad timaaday, waxaad noo sheegtay inaad oolaad dashay, inaad nolosha ay wax badan aad qabatay, ilaa dalkii aad ku laabato, ganacsi aad ka samaysay. bal qamarey, haddii aan ku weydiiyo dhinaca jacaylka, dhinaca kaleeto waan kaa soo arag, dhinaca jacaylka markay timaado, haddaan kula yara kabtamo, jacaylka laftirkiisa suugaanta ma ka samaysaa oo ma ka buraanburtaa, base see isku tihiin jacaylka? cajiibo, wadankan haddaadan jaceylka waa ambareelo, waa dalad haddaan la ilaalin cimri deg dega kugu dhacayo, saanuma qurux badnaanaysid. quruxdan waxaan leeyahay waa iska ilaaliya stress. markuu ina adeerkaa ku qaban way kasii fiican tahay. Maraykan wuxuu yidhaha it's not how hard you work, it's how hard you think. nin duceysan oo maasha allah tabaaraka allaahu baari ah oo hooyaday saas ila daadihinayay buu ilaahay isiiyey, anigana waan ka faa'iidaystay. aad iyo aad ayaan isula soo shaqeynay. intaan ka salaamayaa jaamac Siciid Maxamed. labada qof inay ayaga waxooda dhammaystaan, inay isfahmaan. qurbaha haddayna ninka iyo naagta ayna saaxiib noqonin, jaceylkoodana stronka ma sii noqonayo. waa inaad ka dhigataa ninkaaga walaal, aabbo, saaxiib, sirtiina ay hal noqoto. labada qof 100% ma wada especially gabdhaheena, ragga, wiilasheena. waan markaa hadda tigtaaga iyo waxyaalo ka dhacaya wiilasha Soomaalida, faarax maxayaan dhahnaa, nin Suuriya kaa bixiyey, aroos kuu dhigay, reerkaaga kuu biilay, Afrika kuu raray, kusoo biilaayo, waxaa laga helaa wiil Soomaali. marka wiilasha Soomaali guuleysta, sharaf iyo ciso. haddaa kala tagtaan xataa ciyaalku iyo kugu biilaa, gurigaaga kaa mararayo, alaab kaama qaadayo. nolosha sheerkan kadeedkii cadaabta dadkan ajnabiga ma qabno. ninku furay baa guri kuu gadaayo. marka wiilasheena sharaf iyo ixtiraam iyo xishmaa idiin hayaa. ana wiilal waan dhalay. jaceylkana waxaa ka garan kartaa quruxdayda. gabadha nin libaaxa markuu qabo ayadaa laga gartaa. haddii kaleeto nolosha wadankan wuu stress badan yahay cajiibo, because waxaa la yiri guriga dab hadduu ka shidan yahay korkaagaa laga garanaa. boogta hooyaa dhijita boog ilaa intay ilaalin kartaa. marka aniga waxaan dhihi lahaa jaceylka ha waaro. waa tahay adiga waxaad ku jirtaa dadka uu sida fiican u qaabilay, u soo dhaweeyey, ku adeegay, ilaa haddana ku dhegan. waayahay, haddii aan dhinaca kale ka eegno, dhalinyarada waxay kugu wareersan yihiin qaabkay is-aaminaada noqon lahayd oo kale. markaad abwaan tahay, maxaad ku dhiirigelin lahayd oo dhihi lahayd is-aaminaada sidaanay ku timaadaa, sidaan ayayna noqotaa, sidaasaana wanaagsan in loo ilaaliyo?
horta gabdhaha sankalaad iyo hooyooyinka especially reer qabri bayax aad baan u ammaanayaa dhaqankeeni ay soo celiyeen walaashay hindi cigana aad baan u salaamayaa cajiiba waxaan ka helay arooska gabar waa bowdo waa la kabaa arooska culeyskiisa ma yaro laakiin wiilka hooyadiis iyo gabadha hooyadeed markay garab istaagaan reerkaas maasha allah tabaaraka allah dhaqanka wanaagsan ee hadda socda aan ka helay intay zinadii iyo faaxishadii badan lahayd waa loo fududeeyay guurka waxay haystaanba wax loogu daray taasna waa sharaf noo soo hoyatay gabdho xijaaban aniga wiilkana isguursanay anoo shaqaysto isku filan lacag fiican haysto ayaan keenay asbaranay marka asbarana hooyaday akhlaaqdiisa aragtay waxay igu tiri xoolo waa la helaa laakiin jaamac oo kale lama helo hadalkeedii wax badan ayaan ka faa'iiday sheekh xasan carto allah u naxariisto aabbahay iyo adeer axmed nuur eedda cibaado iyo anfac intaan ka salaamayaa waxay igu tiri ani saaxiib malihi aroos bugbug iyo ha ii keenin qamarluuley 4 wadaad sheekh nuux iyo sheekh xasan ayaa i meheriyey culimmadeenana waan salaamayaa iyo walaalkay muxidiin dhammaan reer sankalaar faataxadii waan ku guuleystay maqribtiiba gurigeygaan joogay meherkana wuxuu ka dhacay isla xaafadeyda waxay tiri gurigaasoon bakeeri ka dhimaneen keenso jaamac sharaf xishmad salaad idib akhlaaq kulli waxay tiri wuu ka dhan yahay dhaqaalna waxay tiri inta adi haysataa kaa badan taladeedii way ii shaqaysay oo xataa haddaan isqabanno wuxuu xasuustaa buraanbur ay ka tirisay hooyo ma ku luuqaya maasha allaaho habeenkii ayay ku tiri bismillaahi waxay tiri jaamacow qamarluul waa xidig qamar gabar ma aha waa gabar aqli badan waa gabar karti badan waa gabar ila soo jabhadaysay marka ammaani afkaaga kaagama horreysay soomaalida tiraa waxay tiri bismillaahi xariiruhagu yartaa xila meerusi xariiruhagu yartaa xila meerusi warwaaxigaalkayaxaalo xumaanka dhoor warwaaxigaalkayaxaalo xumaanka dhoor hadday ku xumaysa ku xishme xigaaladeed gadaalka xasuusa xishma haddii lagugu daaray bogaaga ku hay sidii bal qur-aanku yaal jaamacow hanadow salahan diraniga guddoon abowowaadii dadaasheelow ku daa allow ha ku qaadin qaadka maanta jiro anaad ila dhalatay anihiga dhigayga tahay anaad lafta dhabarka iyo dhuuxaygaga taal jaamaca maantiisa adduunka haddaanu diro adeerkayba dhalo waan ku dhaaranaa war adeerkayba dhalo waan ku dhaaranaa aniga xajigayga maantiisa waan aqaan guulayso jaamac waana barnaamijyo taxana ahaan doono oo ku casuumi doono qof walba oo suugaanyahan ah qof kastoo abwaan ah waa barnaamij aan ugu talagalnay inuu qof walba kusoo dhigo hibadiisa qaaska uu leeyahay islamarkaasina uu rabo inuu ummadda soomaaliyeed uu usoo gudbiyay dhammaan dadka ku nool gudaha dalka mareykanka halkan dhinaca farsamada waxaa iga caawinayay saaxiibkay axmed cabdi axmed laari waxaa ila joogtay abwaanadii weyneyd ee soomaaliyeed qamarluul intaasi barnaamijkan lamida intaan ku kulmi doono waa annaga oo idin wada leh
asalaamu allahu calaykum aad ayaad umahadsantihiin